waxa lala yaaba ah in 400 oo ciidan intaasoo baasuuka intaasoo huba intaasoo qaraxya intaasoo miina runtii waxa ay u soo kaxaysan meel caasimad ah ee amni ah runtii waxa amnigeeda uu u sugan yahay si aan caadi ahayn waa wax lala yaabo laakiin maanta waxa cadaatay in inqilaab wax la yiraahdo uu fashilmay oo imaaraadka ay maroogayeen imaaraadka waxaan la soconaa in dalka waxa dharbaaxi xun ay kaga dhacday si filan waa ah lagaga saaray oo waxa beesiskii uu ku lahaa meel walba marka asagoo isku dayay in uu carqaladeeyo oo runtii waxa dawladda uu ka argoosto ayuu maanta wuxuu soo abaabulay shir beenaad ah in lagu qabto magaalada Muqdisho ee 400 oo ciidan midkiiba 200 ku dhawaada uu soo kaxaystay Axmed Maxamed Islaan iyo Saciid Cabdullaahi Dani magaalada Muqdisho nasiib wanaag waxa ah in dawladda federaalka ay garatay ayaanada iyo maleega ay imaaraadka u soo maleegeen in loo soo kaxaysto 400 oo ciidan magaalada gudaheedana lagu diyaariyay dhowr iyo 20 cabdibilayaal ah runtii waa inqilaab wuxuu ahaa magaalada lagu qalqalgelinayo laakiin nasiib wanaag waa dawladii ayaa garatay waana waxaan runtii waxa marnaba aan dhici karin waa wax lala yaabana amniga magaalada in maanta waxa la yiraahdo waxa ma taqana intaas soo ciidan ayaan u kaxaysanaya iyagoo markii aadayaan Addis Ababa ama markii aadayaan Nairobi oo aanan hal waardiye xataa aanan kaxaysan iska daa bistoola ay qaataan hal waardiye xataa aanan kaxaysan ama imaaraadka markii aadaan marka waxa waa wax runtii aad looga xumaado in magaalada Muqdisho amnigeedii waxa uu xaalad degan ay ku jirto oo amnigeedii ay dhowr iyo 30,000 oo ciidan ay sugayaan oo shabaabkii iyo qaraxyadii iyo runtii qalquladihii marna waxa aysan ma taqaana awood ku lahayn inay wax ka sameeyaan waxaan la soconaa in imaaraadka 100 cabdibile iyo in ka badan uu ka soo dejiyay magaalada Kismaayo kuleeli hadda la soo dhaafay bishii Agoosto qaarkood ay qaraxyo ka fuliyeen magaalada Muqdisho oo cabdibilihii waxa lagu soo buufiyay Nisa in uu gala godkii Jilcow iyo ciidankii waxa ma taqaana shabaabka ay saaraa oo kamid ah gawaaridii imaaraadka ay keeneen maantana waxa in dhowr iyo 20 magaaladii waxa hore loo soo galiyay loogu talagalay inay waxa ciidamadaas isticmaalaan oo magaalada intaas soo baasuuka iyo qarax iyo dhibaato ay ka sameeyaan marka runtii waxa nasiib ah waxa guul ah in maanta shacabka Soomaaliyeed ay arinta aad soo dhaweeyeen in ciidamada dib loo celiyay iyaga laftirkooda ciidamada waxa ay garteen habka iyo meeshii ku socdeen goob dagaalmiyaan ku soconaa yiraahdo magaalada Muqdisho masaabay waxa qatar u tahay laftirkooda isweydiiyeen kala wareeg iyo markii la yiraahdo laftirkooda markay ka hadlayaan oo runtii la yaabay meeshii ku socdeen sida loo soo qarabeeyay waliba baasuukaha sidiisaba waxa qoriga waa inuu xabadda ka baxsan tahay marka baasuukihii garabka u saaray xabadiisii ku jirta qalqal noocaas iyo waxa cabsi noocaas meel aysan ka jirin in intaasoo qalqal la geliyo waa wax dhibaato ah marka Saciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay runtii waxa dib isugu laabo aqliga ha shaqeeyo hadii dalkaaga maalba lagu isticmaalayo in lagu carqaladeeyo dalkaaga runtii waxa waa dhibaato waa nasiib darro maanta waxa soo qof mas'uula dal waxa ma taqaanaa deegaan waxa mas'uul ka ah dalkiisii maanta waxa uu damac kaga jira barito inuu waxa xukunkaasi tud waxa ama caasimadaasi tud uu wax ka maamulo ninka maanta waxa ula dhaqmay sidaas oo kale sidee shacabka ku soo dhaweynayaan sidee shacabkaasi tud kalsooni u beeraya hadduu maanta waxa ku kalsoonaa waa shacabka sidoo bari ku xukumaaya marka su'aalo badan oo isweydiin laakiin waxa qadka ayuu ka sii dhacaya siyaasadiisii waxay noqotay siyaasad fashilantay siyaasad waxa dadka ka sii fogeysay oo damac siyaasadeed inuu ku jiro laakiin waxa danaha uu u fulinaa imaaraadka waxay keenaysaa inuu waxa qadka ka sii dhaco siyaasadiisii ay waxa gabi ka sii dhacdo marka waxaan leenahay wax lagu xumaado maanta wixii ka dhacay magaalada Muqdisho hadii shir rabada runtii waxa loo imaanayo wada inaad adigoo nabad ah timaada laakiin adigoo goob dagaal u socdo inaadan magaalada ku soo dhiirin